kusoo kordhayo horumarka gobolka la oran karo horumar ay gobolka ku saacidinaysaa iminka sida aragtaan waxaa booqasho ku joognaa isbitaalka Shifa oo isagu waa isbitaal mar dhaweyto degmada laga hirgeliyay markaasna ay hirgeliyeen dhalinyaro markaas u dhashay gobolka Hiigado oo isugu jira dhalinyaro ku sugan gobolka iyo waliba kuwa markaas dibadaha ka sanna waxay calaamad u tahay la oran karaa maalgelinta ay dhalinyarada gobolka Hiigado ama odayaashooda ay ku sugan qurbaha iyo waliba kuwa ku sugan degmada ama gobolka iskaashi ay sameeyeen ay ku doonayaan markaas inay ku horumariyaan gobolkooda haddaba maanta waxaan joognaa isbitaalka Shifa oo isagoo isbitaal casri ah isla markaasina sida idin muuqdo qalab casri ah yaalo oo horay gobolka ugu jirjir waxaana iminka horteeda taagan oo aad arkaysaan qaar ka tirsan dhaqaatiirtii ka howlgali jirtay ama ka howlgashay isbitaalkan casriga waxaa hadda ii muuqda oo dhankiga midiga taagan aadan maxamed cabdulle aadan guri oo isagoo ah maamulaha isbitaalka Shifa ee degmada Balxaawo laga hirgeliyay isla markaasina ku jiro dhalinyaradii fikradani keentay ku kala sugan gudaha iyo waliba dalka dibadiisa aadan waxaad iga wartaa marka ugu horeyso waxa ay ku dhiirigeliyay in aad furtaan isbitaal caynkan oo kala inaad ka furtaan gobolka Gadow bismillaahir rahmaanir rahiim awalan waad mahadsantihiin fursadan aad siiseen inta kadib markaan aragnay baahida dadkayaga ama shacabkayaga gobolka gaar ahaan degmada Balxaawo ka jirto oo xagga adeegga caafimaad ayaa waxay nagu dhalisay fikrigan annagoo ka kooban dad dhalinyaro gobolka u dhashay oo ah reer ganacsiga gudaha iyo niman dibadda noo ka yimid arrintaas ayaa waxay nagu sababtay fikrigan asaga ah saa ayaan isbitaalkan ku furnay Shifo kuna hindisay marka aadan maxaa isbitaalkan maxaa qalab oo casri ah oo gobolka aan laga heli jirin oo iminka laga helaa saad u aragtaanbo waxaa yaala shaybaar casri ah oo baalka la yiraahdo kilometerka ya ziyaado ku ah waxaa yaalo midka kale isagana centrifuge baa la yiraahdaa waxaa yaalo microscope-kaas ku shaqaynaya electriga awal wuxuu iska ahaa mid ku shaqaynaya light ama electric hadda oo electric ku shaqaynaya dhamaan waxa yaala isbitaalka waad maasantay aadan adoo soo koobayo balaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka Shifa ee isagoo isbitaalka cusub degmada Balxaawo baladoo noo soo koobay maadaama adigu aad tahay maamulaha isbitaalkii Shifa ee degmada bismillaahir rahmaanir waxa ka howlgalayo dhakhtar cudurrada guuda iyo caruurta Dr. Ali baa la yiraahdaa Maxamed Cilmi iyo oo taqasus dheerna u leh cudurrada uu daweynayo taqriiban 42 sano shaqaynayay iyo gabar ayadana cudurrada haweenka gynecologist ah oo ayadana ilaa 25 sano shaqaynaysay oo ayadana taqasus dheer u leh oo qaybta dumarka ayadana ah shaybaaristaha oo ah nin asagana sidoo kaleeto ilaa 22 sano asagana shaqaynayay oo raggii hore ah oo caan ka la yaqaani asagana ragga ayada ah naas ilaa iyo 4 ah oo qaybna ay caawiyaan dhakhtarka qaarna ay caawiyaan dhakhtarada qaan inpatient-ka ay caawiyaan saad aragteen isbitaalku waxa kale leeyahay qayb jiif ah marka inahaas ayuu ku kooban yahay isbitaalku qaybihiisana waxa weeye waa patient-kaas oo jiif ah qayb jiif ah qaybta delivery-ga dumarka oo dhalmada shaybaarka iyo labada dhakhtar iyo farmashi weyn waad maasantay aadan waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo goormadii fikraddan ku dhalatay in aad gobolka horumarkan caynkan oo kale aad ka samaysaan imisa meeqaad furteen waqtigeebaad furteen isbitaalkan hadda aan joogno ee Shifa horta fikraddu waqti dheer bay nagu dhalatay taqriiban ilaa iyo 5 bilood ka hor bay nagu dhalatay laakiin waxaan ku guuleysanay ugu dambeystii 15 July 2007 su'aasha ugu hore u dambayso aan jeclahay inaan ku weydiiyo aadanu dhalinyarada idinka caynkiina oo kala oo ku sugan qurbaha oo iyagu gobolka ka aaminsan inay markaas aysan ka jirin ammaan darro maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyaradaasi walaalahay waxaan ugu baaqi lahaa inkastoo qaar ka mid ah hadda inala joogaan barnaamijkan ay nala curiyeen inta kale ee maqan inay ku fikiraan horumarinta dadkooda iyo dalkooda ammaan baa ka jira wax dhibaato ka jiro ma jiraan dhulka soo aragtaan marka inay iyagana ku soo biraan ay maal gashadaan dhulkooda ayaan ugu baaqi lahaa maasantay kaas wuxuu aadan guri oo isagoo ah isbitaal maamulaha isbitaal iskuulka la magac baxay waa beri iskuulkaas oo dhawaan laga furay duleedka magaalada Balxaawo oo qaar ka yimid waddankaas Mareykanka iminka waxaa horteena taagan sida arkaysaan Jamaal Maxamed Baxle oo ka mid ahaa raggii ka dambeeyay inay halkaas iskuulkaasi furaan Jamaal marka hore waxaan naga warbisid qaabkii iskuulka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على امر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وما سنتين عن رجعنا ليرضى ومالتا كنت لك على إني وربحنت إسكول كإيجارسيان ملان هل كان ملان هذا النود وين مركز روين كم هذا عليا بعد ما هذا علين إسكول كان هذا عن وربحين يرين كسيو وعن فكر كيسب اللوني لبكون يصدح لي حانا سوق مقابي رج الليرة جالية الدبادة أو إسكول ضيدي إني مقالة عن بلد حاو ومركز عن إسكول كجرين أي إسكول ضيان إني إسكول وصميان بعد فكر كاس حاصم إني جدي كاس أو إني سوق مقابيان وحي إسكول كاس كبحلها نقاليه كبحلها markii ay noo soo gudbiyeen waxaanu bilaabnay fundraising aan ka raadinay dibadda fundraising-gaas ama lacag ururintaas waxaan u kala qaaday markii ugu horeysay Yurub iyo Mareykanka wuxuuna Ilaahay noo hirgeliyay 2005 inaan lacagtii aan half lacagtaas aan helnay waxaan ku soo qiimeynay 40,000 waxaan helnay xilligaas lacagoon half ku dhow كبعدي إلهي إذن كيس هذا نوحا حنصور تكشي لبكون يلحذي إن ندب هذا أنا أهلنا لعكتي أو دمايستران لبكون يتضبدي بشي فبرورينا وحانو باللوني اسمه نجحي أجوه الرئيسي بانو دقنا فبروري يوم ماج يوم أبريل حين نقول نماتي بشي صدحات بين نقول نماتي إسكولكي إلهي فضلجيسنا ما توان نجحذي يو سيلجي يو مسقوليه يو جرانكي بنوني قالوا ديل الها جيدت الله كو عبورني أنت بساد وجدان أن وانو كل ما يسترني وحنا كوهم وين هدو إلهي رهدو شن يتوان كبشة أغسطس هنا الباب كوفرنا أن أرضي كحرينا وحا إلهي مهديسا إن معلمينتي عن هلي قار كميدانا عن دلك كينيا ككيني قار كميدانا عن دلك الصومالي عن كهلي marka horta iskuulka anoo soo koobayo warbixintiisa wax badan ka tagay maadaama waqtigu uu aad u yar yahay waa inahaas waa gartay arday haduu Ilaahay yiraahdo marka fiigaas oo aan isleenahay waa inuu safe iskuulka uu ahada muddo sanada jaaliyada ayaa miisaaniyadeedii dajisay loona diyaariyay sanadka markii ay lacagtaas ardada laga qaaday uu safe u noqdo wixii ka dambeeyo waxaan ku hanweynahay inuu iskuulka isaga isbixin doono annaguna aan u jeesan doono u madax banaanaan doono mashruuc kale oo magaalada ka fulin doono insha Allah dawlad manhajkan hadda aan kuraas 72 kursi oo min saddex 236 inay tahay baan u maleeyaa waxaan ku talagalnay subaxii iyo galabtiiba in la dhigto 490 ardayna ay galaan 236 ay subaxii galaan ilaa hadda miisaanada aan sameynay waxaan ku sameynay 9 macallin dadoo eebay maadaama iminka inoo sheegtay in iskuulka ka kooban yahay ilaa 6 fasal mustaqbalka dhow ma la rajeynaa inay halkaas ka sii kordhisaan sida ugu dhaqsaha badan laba jaaliyadood oo kale baan ugu soo biirtay hadduu eebay idmo waxaan rajeynaynaa inaan qolal kale aan ku darno sida ugu dhaqsaha badan East Africa iyo South Africa oo marka hore aan xiriiro badan muddo inoo socotay baan ugu soo biiray marka waxaan rajeynaynaa inaan inta ka weynayn doono hadduu eebay intii dunida inta badan hadda waxa laga isticmaalaa waxa la yiraahdo caalam al-awraaq ama shahaadooyinka iskuulkana xagee shahaado kaga helaysaa waa su'aal wanaagsan waxaan ku rajaynahay on hadda iskuul kale oo ku yaala Mandera baan la mataanaynay iskuulkan waxaan ku rajaynahay marka ardada imtixaan